dhibaatadaas inta ay socotay aad ka soo sheekaysay waxaa dadaal dheer ku jiray jamhadda xoreynta Soomaali galbeed waxaad si fiican uga warqabtaa wiilashii raamaha lahaa ee hawdka ku jiray ee gabdhihii dabar culinayay ee habeen iyo maalin la garab taagnaa hiilka iyo hooga ayagoo diiday marnaba in dhinacooda dhulka la dhigo ay qaataan waxa u qalmo wax ka yar waasay hadalku dhigeen ayna diideen inay gumaysto ay raalli ka noqdaan jamhaddaas iyo adigu iskuma fiicdiin baa la leeyahay waa maxay dhibaatadeedin dhex taala adiga iyo jamhadda xoreynta Soomaali galbeed jamhadda xoreynta Soomaali galbeed oo istiidanahay ma jirto haba yaraatee Soomaali galbeed wax sheeganaya hadaan heli lahayn waan wajin lahayn maan qabaa waa gartay marka waxa leedahay okay si kale aan kuugu dhigo jamhaddu waxay ku biirtay waxay noqotay xisbi waa la tagay waa la heshiiyay heshiiskaas adigu waa joogtay wixii lagu heshiiyay maxay ahaayeen heshiiska anagu jamhadda ya Soomaali galbeed maana la heshiin Cabdi Xafid get your facts right jamhadda la heshiiyay magaceeda ii sheeg kadib baan kaga jawaab waa gartay jamhadda iyo dawladda dhexe Itoobiya way wada hadleen ma jamhadda ONLF jamhadda ONLF marka spell out maxaan isbeel garaya jamhadda ii sheeg maxaa la yiraahdaa magaceeda waxay ila tahay jamhaddaas in magaceeda laga dharagsan yahay inaan waqti ku lumiyo mar rabo waxa adigu ogtahay anaan ogahay jamhadda iyo dawladda dhexe way wada hadleen waxa la yiraahdo ha ahaatee wada hadalkiina waa la heshiiyay xisbi ayay noqdeen xisbigaas adiga ayuu kursigaaga damac kaga jira oo looltalin ka dhaxeeya taas ayaana keenaysa ayaa la leeyahay in aad hadallo aan u qalmin aad hawada u soo mariso oo saxaafadaad ka tiraadid dhiig bay daadsheen iyo dhibaato keeneen maxaa arinta ka jira jabhadda aad ka hadlaysaa waxa la yiraahdaa jabhadda Ogaden National Liberation Front jabhadda la yiraahdo WSLF waxay ahayd marxalad kamida marxaladihii halganka ee shacabkana uu soo maray arinteedu waxay dhamaatay horaantii 8meedii marka jabhadda hadda aan ka hadlayno si shacabka maadaama kulli ayna xogta wada haynin qaar badan oo sida aad u sheegtay fahmaya jira waxaan ka hadlayno laakiin shacab Soomaaliyeed oo balaaran baa dhageysanaya jabhadda hadda aad ka hadlaysaa waa jabhadda Ogaden National Liberation Front oo NLF la yiraahdo waa sax weey jabhaddaas Soomaali galbeed lama yiraahdo waxyaalahan isku haysanay kamid tahay magaca inay bedelaan oo magaca Soomaaliyeed ay qaataan oo magaca qabiilka ay ka tagaan oo ay Soomaaliya oo dhan metelaan marka jabhaddaasi heshiis bay ku gashay Asmara saddex qodob ka koobnaa in barnaamijkeeda siyaasadeed ay ku maqnayd maadaama hadda fursad ay si nabadgelyo ku fulin karto wadanka ka bilowday inay yimaadaan oo xisbi siyaasi noqdaan baa koow ahaa laba wuxuu ahaa in la maareeyo ciidamadii duurka ka joogay intii ay ku jireen halganka hubeysan saddexna waxay ahayd in iyaga iyo xukuumadda ay dhistaan guddi isku dhafa oo ka shaqeeya qaabkii siyaasadda loogu tartami lahaa ama la iska kaashan lahaa xukuumadda deegaanka Soomaalidu way fulisay wixii qaybteeda ahaa 500 milyan lacag ka badan baan ku bixinay soo dhaweyntoodii soo dejintoodii maareyntii ciidankooda marxaladii dejinta iyo soo dhaweyntu way dhamaatay marxaladii tartanka siyaasadda noo bilowday waxyaalaha la isweydaarsanaya hadalkan wuxuu ka mid yahay uun qaybta tartanka oo iyana ay xukuumadda ku dhaliilaan anna iyaga aan ku dhaliilo hadal xanaf la iyo xanaf dhibaatii toona ma jiro cid waliba barnaamijkeedii iyo fikirkeedii ay iibinaysaa marka ay dhibsadaan ma aha aragtida aan ka qabno iyaga aan u soo marino baraha u soo marino media ma jirtaa inaad tiri jamhaddu dhiig bay daariso dambi bay gashay hadda ka hor ma modern hadalka maadan oran adigu waa ka gudbaynaa waa gartay jamhaddu waxa ay doonaysaa maadaama ay xisbi noqotay in ay jagada kursiga qabato oo kula tartanto ma ogoshahay si xor iyo xalaal in lagula tartamo oo cagajuglayn iyo dad la xiro iyo hanjabaad aysan ka imaanin ciidamadaada adiga ku gaarka ah askarta meesha ka shaqeysa ma oo kaliya inaan ogolahay in si xorana loo tartamo actually we are going extra mile in aan xitaa in wixii sharcigu dhigay wax ka balaaran gallo oo odayaasha deegaanka ay makhraati ka noqdaan guddiga doorashooyinka ee dawladda qaarkood lagu dhaleeceeyo la yiraahdo xor maaha kaliya maaha odayaashu deegaanku inay noqdaan auxiliary capacity ama xubno kale oo iyagu goobjoog ka noqda tartan doorashaad u dhacayo ayaan diyaar u nahay waxaan u ballan qaadaynaa in tartan xor iyo xalaal deegaanka looga ogol yahay ONLF waxaan ku kalsoonahay in doorashada laga adkaan doono
waa gartay waqtigeeda iyo maalinteeda ay leedahay dabcan inaan ka hor dhacno dooni mayno waa